wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka xukuumadda Soomaaliya Titooreso Xaawo Xasan Maxamed oo maanta dalka dib ugu soo laabatay ayaa faahfaahin ka bixisay safar shaqo oo ay ku tagtay wadamo badan oo caalamka ka tirsan oo ay kaga soo qayb gashay shirar looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa caafimaadka iyo in la helo siyaasad caafimaad oo dhameystiran gaar ahaan dalalka soo koraya ee Afrika ka tirsan. waxaana markii ay soo gaartay garoonka diyaaradaha aadan cadde halkaasi ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi. Titooreso Xaawo Xasan Maxamed oo warbaahinta qaranka kula hadashay qaybta VIP-da ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa ugu warbixisay shirarka ay ka soo qayb gashay iyo waxyaabihii ka soo baxay. waxaan warbixin ka bixinayaa kulamadii aan ku soo sameeyay Qaahira, China iyo Geneva. kii ugu horeeyay wuxuu ahaa health diplomacy meeting oo macnaheedu uu yahay siyaasadda lagu dhaqi lahaa caafimaadka daryeelka caafimaadka oo loo qabtay dadka degan regionkan maxalli Mediterranean-ka oo carabta oo dhan ay ku jiraan. waxaa looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa daryeelka caafimaadka ee wadamadan ku yaala Mediterranean maxalli jiray area. sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Titooreso Xaawo Xasan Maxamed ayaa sheegtay in dhawaan uu furmi doono shir looga hadlayo arrimaha horumarinta caafimaadka Soomaaliya isla markaana ay martigelin doonto ururka jaamacadda Carabta oo si gaar ah looga hadli doono arrimaha caafimaadka Soomaaliya iyo sida ay wadamada ku midoobay ururkaasi ay door muuqda uga qaadan lahaayeen horumarinta adeegga caafimaadka Soomaaliya. tan ugu horeysa waxay tahay xiriirkii anaga China naga dhaxeeyo kale taasi muhiimad gaar ay leedahay. ayagu waxay target ka siinayaan ama waxay muhiimad siinayaan isbitaal banaadir. laakiin anu waxaan codsaday isbitaal banaadir oo ahaan jiray dhalaanka hooyada iyo dhalaanka isbitaalaha in laba isbitaal oo sidaas oo kale laba gobol kale nooga dhiso si markii dadkii ay u helaan saddex meel oo kala duwan. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Titooreso Xaawo Xasan Maxamed ayaa soo hadal qaaday qorshaha wasaaraddeeda ee ku aadan dhanka horumarinta adeegyada caafimaadka gaar ahaan gobolada Soomaaliya iyadoo xustay in dhawaan ay bilaabi doonto qorshayaal lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka gaar ahaan gobolada dalka. waxaan rabaa gobol walba hal isbitaal weyn inuu leeyahay. degmo walba haddaan isbitaal weyn geyn karin isbitaalo yaryar ama maxaa la jiray family hospital yaryar oo gabadha umushana ay ku dhali karto qofkii xanuunsan uu ka helayo daawooyin u baahan yahay inaan ka sameeyo ilaa aan ka gaaran degmo walba isbitaal u sameeyo. Xasan Yuusuf Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.